الحمد لله بسم الله halkan waa ceel Khadija Caaji waa la cabayaa dadkii waa cabayaa dunyadii waa cabaysaa hawl badan baa lagala kulmay shaqo badan baa la qabtay ilaa iyo hadda saacada hadda aan joogno waa 10 saac iyo bar ilaa 3 saac oo saaka ama sida loo sagaalka ayaa ceelka furnay intaas xoolihii iyo jilicsaneed iyo dhaankii cabaysay meeshaan waxa ku nool makhluuq aad u fara badan dad badan ka warqabo aniga kamida waxaan islaa meesha meel waa hore laga guuray ummadda meesha ku nool iyo xoolaha meesha ku nool iyo makarasta iyo dadka culus oo yaala ilaahay ba og xaalkooda dhibaatadii qabatay iyo wixii soo gaarayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha uga boogadhayo intii gurmatay oo shaqada ka qayb gashay oo hawshan wax ka qabatayna ilaahay ajar iyo xasanaad badan ka siiyo intii xoolo bixisay intii xoog bixisay intii sadaqa dhiibtay intii gurmatay intii hadashay ummad badan iyo makhluuq badan baa meeshan ku noolaaday biyo ka cabay ilaahay baa mahad shukr iska leh ilaa saacadan wala cabaya wali ariyi waa horan yihiin 7 saac waa socdaalka hadda wali xooli waa cabayaan wali waa socdaan dhaankii iyo arigii iyo wixii oo dhan waa socdaan wali waa cabayaan wali waa la cabayaa shaqadu waa socotaa ma sha Allah ilaahay baa mahad iska leh badan baa lagala kulmay aalku aad buu rafaadsanaa uu baaba'sanaa tuubooyinku waa baaba'sanaayeen ilaa iyo salka iyo bamka la tagay biyihiisa insha Allah ay abi jireen dadkii ka abi jiray hadda way heleen way haystaan waxaana wali u baahan yihiin dadaal badan meeshaan makhluuqa ku nool waa dad aad u fara badan dad culus weeye kuma haboona meel saas oo kala hal aal kaliya in lagu noolaado dadku waxay u baahan yihiin meel ay gurmadaan nambale meel biyaha ka gaar ilaa hadda 6 saacadood dadka afkiisa iyo dhaanka la waraabinayay waxay u baahan yihiin si soo la yeelo in loo gurmado hal loo raadiyo meeshan makhluuqa ku nool dad qiyaas karama dad badan baa ku nool intii islaam iyo intii mudan iyo intii maqlaysa waxa laga rabaa dadka in loo gurmado dadkii weeye dad makasa weeye dad jilicsan weeye insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay intii klibkaas u gaaro xasuusan doonaan makhluuqa meeshan ku nool iyo culayskay qabaan ma sha Allah هيا كورما إليك بيها هيا كورما حالد ما نسيت هاي إيش الله يسلي هاي هذا شيخ بسم الله هذا الأدي شيخ هذا وما صلنا إلى ما نسيت نبكي سوينا هاي وإلى ما نقبل أيه كاهو آد ولو في عين أيه حالد هذا سيد هاي إيش لا شلا هاي سيد هم ما شلنا هاي أيه كاهو هذا إلى ما نقبل أيه كاهو dadkii seeyahay dadku waa fiicay balay lama qabo ma sha Allah hayo walaal adi ma sha Allah haye ma sha Allah ilaahay baa mahad iskale intii gurmatay baana ayaguna mudan in la xuso intii jeeb ka gurmatay intii ka gurmatay si walba u gurmatay ma sha Allah halkan waa taangiyaashii oo motorkii oo qolkii motorka taangiyaashtaan u baabacsan yihiin dhulku saan u wada baabacay wax bini'aadam ku noolaan karo iyo meel lagu cabi karo iyo wax alla wax qalab yaalo dhistoroy waa burbursan yihiin dayactir bay u baahan yihiin ma sha Allah halka waa injineeradii waa shaqeeyay jazakallahu khayr aljazaa ma sha Allah eeshaan waa qalabkii laga soo bixiyay aalka waa qalabka saan u burbursan oo saan u baabacsan oo eberkiisa oo qalab baabay laga soo saaray waa iska muuqdaan maahane waa wax wada daldaloolo eber weeye saagiyaashaan ay u baabacsan yihiin aalka wiishki waa ku taagan yahay